sheekh meydkiisa waa kana meesha la geliyay walaalayaal halkan lagu qariyay waa kana halkan calaamadan waa calaamada qofka la dilo lagu xiro sad u jeedaan waa kana walaalayaal waxaan taaganahay meeshii lagu qariyay albaabkaas aan ka soo galnay sad u jeedaan dabcan albaabkan ka soo galiyay Soomaa albaabkan ay sheekha ka soo galiyeen ad u jeedaan wadadiina wataas muuqaal kale ayaan idin heenahay muuqaalo iyo weliba xogo sir ayaa ka soo baxaya qaabkii loo dilay imaamkii weynaa masaajidka Abu Hurayra ee magaalada Columbus Ohio ee dalka Mareykanka iyadoona jaaliyada ku dhaqan halkaasi ay argagax iyo naxdin ka qaadeen muuqaalkan iyo cadeymahan isdaba jooga ee ka soo baxaya qaabkii loo dilay Allah u naxariistay imaam Maxamed Xasan Aadan oo ahaa imaamkii weynaa masaajidka Abu Hurayra ee Columbus Ohio haddaba saaxiibayaal dadkan oo isugu jira Soomaaliya cadaan ayaa in muddo waxa ay baadigoobayeen imaam Maxamed Xasan deetana waxa ay ku heleen jaaniskii ay raadinayeen imaamkii gaarigiisa ayayna la soo tageen meel hawd ah oo weliba cidna aysan ku nooleen ayay keeneen si markaasi aysan u arkin cid marka ay dilayaan Allah u naxariistay imaam Maxamed Xasan Aadan oo ahaa imaamkii weynaa masaajidka Abu Hurayra Columbus Ohio dalka Mareykanka haddaba imaamka waxa ay si arxan darro ugu dileen halka ay la tageen oo ahaa meel hawd oo cidla ahayd deetana dilkiisa waxay u isticmaaleen tooray sida markaasi dadka cadeemaha helay ay tibaaxayaan imaamkii oo nafla caari ahaa ayaa soo galan gasho deetana markii dambe halkaasi ay nafta uga baxday Allah u naxariistay haddaba Soomaalida ku dhaqan halkaas ayaa muddo baadigoobaya imaam Maxamed Xasan Aadan deetana waxa helay mid aad qaraabo u haayeen isla markaana kamid ahaa dadkii baadigoobaya imaam Maxamed Xasan imaam Maxamed Xasan ilaa iyo hadda waxa la garanaynin sababta loo dilay iyo waliba dadkan dilay waxay ujeedadoodu ahayd inkastoo dadkii dilay ku jireen dad Soomaali oo markaasi qayb ka qaatay dilka Allah u naxariistay imaam Maxamed Xasan Aadan shacabka ku dhaqan Columbus Ohio ayaa soo wajahday cabsi fara badan oo ku aadan sidii markaasi ugu noolaan lahaayeen halkaasi maadaama hadda ay bilaabatay dilalka iyo bartilmaameedsiga dadka waxgalka iyo haldoorka ay ku sugan magaalada Columbus haddaba dadkii Soomaaliyeed in muddo ka hadlay dilka imaam Maxamed Xasan ayaa isugu soo baxay goobta uu dilka ka dhacay oo ahayd meel hawd oo cidla weliba iyagoona la yaabay dadkan sida arxan darrada u dilay imaam Maxamed Xasan waxa ay damacsanayeen ujeedkooduna ahaa gaariga ayaa meel cidla la soo marsiiyay deetana dadkii dilka ka dambeeyay ayaa meesha isaga baxsaday inkastoo booliiska Mareykanka ay bilaabeen baaritaano iyo howlgallo ku aadan arrimahaasi si ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen gacan ku dhiiglayaasha iyo weliba dhagarqabayaasha ka dambeeyay dilka Allah u naxariistay imaam Maxamed Xasan Aadan imaamka ayaa si weyn looga yaqaanay guud ahaan dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Columbus Ohio laakiin geeridiisa shacabka halkaas ku dhaqan waxay ku abuurtay naxdin calooliyow tiiraanyo murugo iyo weliba welwel aan dhammaan haddaba saaxiibayaal dadkan ayaa inta badan waxa ay ka fikireen sidii markaasi ay halkan ugu noolaan lahaayeen maadaama hadda ay bilaabatay ugaarsiga dadka caanka isla markaana haldoorada aadkana loo jecel yahay imaamka ayaa markii ugu dambeysay waxa uu dujiyay salaadii cishaha deetana waa la waayay xaaskiisii weliba heladiisana muddo ay baadigoobayeen haddaba waa kuwan qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida halkaasi ku dhaqan oo tagay goobta lagu dilay Allah u naxariistay imaam Maxamed Xasan Aadan oo ka sheekeynayay weliba xogo sir oo laga helay arrimahaasi sheekh meydkiisa waa kana meesha la geliyay walaalayaal halkan lagu qariyay waa kana halkan calaamadan waa calaamada qofka la dilo lagu xiro sad u jeedaan waa kana walaalayaal waxaan taaganahay meeshii lagu qariyay albaabkaas aan ka soo galnay sad u jeedaan dabcan albaabkan ka soo galiyay Soomaa albaabkan ay sheekha ka soo galiyeen ad u jeedaan wadadiina wataas خصب الدودين وقلي ديقو أها في ماشي اللي قلي الشيخ أدو شدان بابوركي أدو شدان ولا ليال إلهي all the way down قاري ولا سعودسية ولا ليال وماشي بنقصعنا اللي قد لي شيخه هل كان ولي بحب بكم مرسيين حب بالقوم مرسي قاري سمع يا حب بالقوم مرسي واحد مدى إنه دقالة ما يبد مدى قاري هل كان بالقيا ليري يا ميتكم كل مالهم بيال ميتكم مالهم بيال يا قاري حق لقي صح
ayaa kulli gaari halkaas gaari istaagay sax laakiin meydka waxaad moodaa inuu soo galgashay ها meelahan baa laga helay marka inuu halkaas inuu soo galgashay soo galgashay inuu soo cararay iyo in la dhigay lama kala garan karo dhaawac maxaa ku yaala sida lagu sheegay wali ma sheegin lama sheeg wax dhaawac oo ku yaala lama sheeg laakiin sad u jeedaan walaalayaal baabuurka waa la dinidileeyay meeshan qashinka ah waa la soo waday ummadda Soomaaliyeed marka halkan ayaa la keenay meeshan waa meel jankiyara oo baabuurta lagu waxay ayaa ka horeysa Soomaa sheekh jankiyar ba ka horeysa halkan meel jankiyara ayaa ka horeysa u jeedaan Soomaalidii ayaa daris la marka walaalayaal Ilaahay ha u naxariisto walaalkeen halkan baa la keenay oo waliba aad moodid xoog in lagu soo galiyay baad moodaa si khasab in lagu soo galiyay sida u jeedaan ayaad moodaa sababtoo baabuurta halkan sa qiyaas caadi u socon kartaa waa tan meesha jiqda ee lagu dilay walaalkeen Sheekh Maxamed Xasan Allah u naxariiste baabuurta halkan baa la soo gashay walaalayaal all the way down meesha cilada ah Ilaahay naguma keeno laakiin qof fahmaya male waa meel wal banaanid waa dad qorshaystay weeyaan sheekh meydkiisana halkan baa laga helay طبعا halkan baa laga helay wata goobtii lagu dilay walaalkeen Sheekh Maxamed Xasan dad eeriyada yaqaana oo meesha calaamadsaday oo soo diyaarsaday oo say u dili lahaayeen ka soo baaran degay weeyaan walaalayaal dadkan ama asaga yaqaanay ama hawla ka dhaxeeyeen ama ganacsi ka dhaxeeyeen bar aaminsanay anigu dira ama cadaan hala sheego ama talyaani hala sheego ama faransiis hala sheego ninkan anigu waxaan aaminsanahay Soomaali ayaa dishay wayna soo wiidaysteen meeshana waa soo diyaarsadeen waatana waxa ka horjeeda baabuurtan meeshatan waa meel jankiyar weeyaan oo baabuurta hadii ay khidmaayo baabuurta burbur I'm still okay war dhici gaaray waa badhay ka meesha urkada way ku qabtay waa meeshaas walaalayaal baabuurta jaban waa dhacay inna lillahi wallahi waa dhacay inna ana ku dhiban gaaray meeshii meesha ma degan meesha ma degan meesha ma degan horta meesha ma degan iga war meesha jankirka iga war Soomaalidu meesha degan tahay wax xaqee Soomaalidu anagu waxaan degannahay taragayaalka ka qayb ka dambaysa degannahay xaqee way ninkan marka intaad ka ogtahay ninkan ehel baan nahay waa familkayaga Allah u naxariisto gacanka xaq daran baa dishay habeenkii ay soo galayso filaaya jibci waa sababteedii markii ay soo tujiyay telefoon baa soo dhacay telefoonku soo dhacay kadib telefoonku wuu qabsaday telefoonku qabsaday boqolkiiba 99 markuu salaada isha uu tujiyo sunno tukan jiray kadib uu bixi jiray telefoon baa soo dhacay si qaanaan baa filaaya inuu yahay sidoo uu soo baxay أمر دقدق وكسي تلفون كسو بحي وهم يقان القياس مايا we don't know الله أعلم إلهي بأقو لكن التلفون إبوتنت أقف ويقان قف سيكون وكبحي كرام لها تلفون إسك سو وعد قف سيكون كسو بحي ملها وعدد يقاني كل بها دد يقاني التلفون بقى صور دعي رجيل تكون إما أسير كدن بيه طبعا هذا الطلياني عدانك يحلي أصبح موعان الصعود الصومالي وبدي هذا we don't know الله لكن قياستي يعني لكن التلفون بقى صور دعي تلفون إبوتنت بقى ولا يستاجي هي ونصوب بحي بقى إنت مساج كله تكودي هي markii baan ugu dambeysay laar asaga shalita marka halkan xalita waxaan ka tagnay 12 aklak ma xalika ka tagnay halkan ilaa ameedka laga qaadan joognay halkaas la gudbay halkaas la galay sheekh ayaa halkaas la gudbay albaabkan wuu xirnaa albaabkee albaabkan way xireen markii albaabka way xireen ha hay kan naga dambeeyay way xireen ha ayo gudaha hoos ka xireen may banaanka ka xireen ful ku xireen maya shabaqana ku xiraadey صح qof ma ishaysin soo wiil halka marahay oo xaafada 11 ka degan waa halka shabaq ka arkay gaari halka yaalo shabaqan ku arkay shabaqan soo arkay gaariga dadka reer shabaqan banaanka ah shabaqan banaanka abu istaagay wiilka soo gaariga buluug uu arkay ka arkay calaamada ka arkay halkan buu ka fiiriyay shabaqan wadadaas maray wiilku ishiisa ku dhacday gaari yar halka yaalo ishiisa waxay ku dhacday gaari yar oo yellow ah يا ضد انت اللي اكبر هذه 700 هذه 700 قف الصوماليين بر هذينيسي واقرت سؤال كابو كاركي الله ما هدي وحا geedahan caleenta way ka daadatay waqti summer winter la joogay hadis caleenta ahaan leeyahay hay oo green ay ahaan lahayd silwarka dib ay ahaan lahayd lama heleen صح لكن إلهي قدرتيسا ديق اسمه قريه إلا ديق قفك مسلم كا ديق اسمه قريه وحلالك اسمه قريه صح سيدي baa lagu helay صح alxamdulillah hadda waxa waaya waxa naga dhibanaan lahayd inaan meedkiisan la aan la helin asana maqnaan lahaa efforts badan oo gali lahaa saana lagu weynaha waxa dhacday wadankan boqolaal sano kadib
600 سنة 400 سنة waxa laga soo saaraa webiyada iyo badaha gawaari qof lagu riday baa laga soo saaraa صح afrostic files dib lagu furaa oo loo sameeyo la ogaado qofka DNA in qofka ahaa صح alxamdulillah hadda midka waa la helay Allah subhanahu wa ta'ala u baryana laakiin walaalkayo fiiri baabuurkan khasab baa horta lagu galay meesha tan iyo ciriiri iyo xoog iyo ama roob yarna waa jira laakiin xoog baa baabuurka halka ka mid lagu galiyay qofkan marka halkan albaabkan inta laga soo gashaday halka la geystay waxaan qiyaasayaa meel kale oo aan halkan ahayn in lagu afduubay oo xoog lagu keenay halkan khasab midka ninka banaanku yaalay ma meesha sida lagu soo galiyay waa lagu soo galiyay asagoo xiran ama xabad lagu hayo ama الله أعلم أنا مش شاكر لكن وحنا هبنا إن ميتكو بنانك ويالي سو إنه الدجال لامي وأنا ملينا إنه الدجال لامي أما هو أصلا باوع أو قلقشي بيكوز قدو ميت بنانك بسوا دلاين قالوا كل أجر له ما يوحنا كوضع كينيتان كلا كيني مركل كيني يبغى كان من أفضل من أقر الوهاي أما قاري أنت اللي قدك سيل السوق حيست قاري كان من توجا مهين أي ما كان أرنتان أسكو حرباء هاد نك إلا خارج يال ربع العقد دقالة حبل قبل ربي هاي بس توجا أنا ودك وانا قلنا صح هو دراكيلي دراك واحد إزدل آلا بقولك بسرعة سجال كو دراك سالك عروت إزدل هاي سو مركا كو إزدل وكوا لكن dadka weyn la rabo winter listiga ah dhaqaale laga maro waa la qaarijiya dhaqaalihiisa qofka dadka soo dirsaday ayaa bixiyo ay waxba kama rabaan kaliya say ila dhaafiyo si ganacsiga ka dhaxeeyay ama hawsha ka dhaxaysay ama adigu wixii ama hadda Soomaali ma dhihi karno laakiin adigu waxa leedahay ninka kan dad ay wax ka dhaxeeyeen ama dad maartay wax ka damacsan list ninkan arin plan laga shaqeeyay baa ahayd ninka in lagu dawara cadaayo meesha lagu xirtay albaabka fiiri albaabkan ma aaminsan tahay in ninkan iskama keenin albaabkan uu meesha keensanayo uu yaqaano ma qorad ninkan cadaan ajnabi waxba kama dhaxeeyaan sax madow balaag Amerika waxba kama dhaxeeyaan sax cadaanka wadankan dawladdan waxa jirto sharci baa jiro qofka hadii at least lagu helo terrorist act ama at least waxyaabo argagixisnimo uu ku jiro saan sheegay ha wadankan waxa la sameeyaa qofka waddanka way soo qabtaan sax way baaraan sax asaga ma rabaana waxay raadeen intuu xiriir leeyahay si ay u helaan xirtiisa ardadiisa asaga meeluu soo maray macallimiintiisii ma bilaadin buu wax ka bartay Toroboro iyo Afghanistan ma ka soo dagaalamay taariikhdiisa waa la baaray asaga micnaha asana wax programka uu ku shooy sax ay raadiyaan oo soos badan bay ka raadiyaan qofkaas si ay u helaan ila dheer dadka hadii la qabto qofka laakiin waddankan hadii la qabto dawladdu Axmed qofka hadii la qabto kaarka la siinaya waaridkiisa waa dadka wax baa leeyahay هذا الشيخ محمد زيد وصقله هذا راه نضاف بينهم أمريكا شيخ كارشي هذا لك بورلان وكله مايا أنت سوق حين هل كان كويس عيشين مايا كويس ودك دولة عندنا شيخ كارشي هل كان كويس عيشين ولا لو حبادس دم مريسي وحبان كويسنا ذنوبا كويسنا نضاف بينهم فيري أم إميجريشن كويسين أم حولها كويسين أم الدنيا كويسين هذا رجع على ذلك قاعد بينهم مين دلين ماي أمريكا دولة باكو دلي سوا بين شيخنا حليا أنت سوا بين بقفرر كي مير كان تكسر رسالتك وجوردي ونكانوا عدان مدلين صح مدونا مدلين صح عدد إن شاء الله أعلم أنه هذا الصومالي ما ديه كرنو أنا كل الصومالي ما دشين ميا أنا هذا كان فيري أنا إيه الكيسان فيري هرت الدنبيلة قبيل مرة صومالي ما شخصي قد لي على هيل الدونا إن شاء الله كسوف بحين دونه ولا لو في الباب كان إلهي بنكو درشي الباب كان أنت وضلها سنيك كسو قد بي ninka inta soo galiyay albaabkan soo gashaday xirtay albaabkan halka ninka sheekha la tagay ilaahay baan kugu dhaarshay meeshan waa ninkan ugu ogaa meeshan inay qashan qabtay okay jaaliyada Soomaalida Columbus Ohio oo midaysan tahay sheekhan dibka loo geystay ama Soomaali ahaado ama cadaan ahaado in la soo daazin maara tuug qofkii dib geystay okay adiga marka waxaad aaminsan tahay qof wax ka dhaxeeyaan ama yaqaana soo wacay waa qorshaysan baa balaan u ahaa sax tuugada wadanka markay wax dilayso way istaagtaa gaasashina istaagtaa wixii ka bariga ka tagtaa sax so this was planned waxaan wax laga hada siisid ID gaaga iyo hada kaararkaaga iyo lacagta iyo cash-ka daseta kuma dilayaan maana arag wili qof nooca loo dilay oo Soomaali wadanka joogo maana oo saan loo dilay oo halka cilada la geystay barta cilada la geystay waxa dhirtaan oo dhan waxa ka daa fiiri meesha baabuurta soo galgashay arag baabuurta soo galgashay sheekha meedkiisana meeshan soo ka laga laakiin qasada ilaa iyo meesha u dambeysay sheekha la tageen all the way down laakiin sheekha meelahan dhexe oo soke ayaa meedkiisa walaalayaal laga helay oo uu soo galgashay baan anu qiyaasay markii hore inuu soo galgashay marka Allah u naxariisto haddana dawladda ku jirta anu wada duceyno dawladda ku jirta qofkii yaqaana ama information ka haya ama qiyaasaya qof dilay ama war maqlay ama information haya ama qiyaasaya qof yani colaadi ay ka dhaxaysay oo isleeyahay waa dilay walaalow ha qarin إلهي سبحانه وتعالى وحو قرآن كيسا كيري ولا تكتموا الشهادة مرخاتيها قرننا إلهي يري
ومن يكتمها فإنه آثم قلب قف في قرية وقف دم فيري نبي أنه عليه الصلاة والسلام وحيري لعن الله من آوى محدثا إن على ذا كل على قف دم بيلة أو كريمنال أو دلاء أو دقيعة أو قاتل قرية ولا لو نحريست إلهي إنه كسيو هداد أكتهي قف نينكا مسكينكا أو شيخا أو إمامكا كقيب قاتي دلكيسي أو قوبتوكا أها أما تليفوننا وحكاهي أما هالكان وحكا كيني أما صاحب لا أما السر يركاي إلهي بانكو قدار الشيء الرحمن شك صاحب الهدد نقول عصبتني سبسكرايب لها قنبلة كنفرت سيدي سوغاران وحيابا حيساها بدن مركاسي عن صور دقنا حداد هورين ولا جوكتنا مدحاد انو سألنتين دليل أمان بقادين تلي يتشالح داد انو هيسانا غيبتو كومنتين وقولوا بواندين أخرين